isla muqdishona wasiirka wadax barre ayaa ka hadlay ujeedka ay ula wareegayaan iskuulka markaasi masaarida ee 15 May iyadoo arintaasi dooda ay ka taagan yihiin wasiirka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa ka hadlay ujeedka ay wasaaraddu ula wareegayso iskuulka 15 May oo ay maamuleen guddiga waxbarashada reer Masaar iyadoo ardayda dhiganaysa iskuulka ay si lacag la'aan ah wax ku baran jireen wasiir Goodax oo wareysi siiyay idaacadda BBC-da ayaa been abuur ku tilmaamay war ay sheegeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ee ahaa in sababta ay dawladdu ula wareegtay iskuulkaas ay tahay amar ka soo baxay dawladda Itoobiya oo xiriir la leh khilaafka dawladahaasi kala dhaxeeya Masar waan arkayay baraha bulshada iyo baraha internetka arrimaha Soomaalida ku hadlaya xildhibaano ka hadlaya aniga xildhibaano siyaasadda ka dhacay oo dawladnimada iyo wadaniyadooda ay aad u hooseyso ayaan aaminsanahay inay yihiin ayuu yiri Cabdullaahi Goodax isagoo ka hadlayay ujeedka ay wasaaradda waxbarashada ka leedahay la wareegitaanka iskuulkaas ayuu sheegay inuu ula wareegeen si ay wasaaradda uga qabsato shaqooyinkeeda in go'aan iskuul ku yaala xamar oo aan dadkeena ugu danaynayno oo aan howlaheena ku qabsanayno ay yiraahdaan dawladda amar ayaa meel laga soo siiyay waa u dadnimo xumo waana u dadnimo markaasi wadaninimo xumo buu yiri waxay rabaan oo kale ha sameeyaan laakiin inay tacliinta siyaasadeeyaan waa u dadnimo xumo ayuu si raaciyay qoraal ay qortay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya ayaa lagu wargeliyay guddiga waxbarashada reer Masar ee Soomaaliya in dawladda ay kala wareegayso maamulka iskuulka 15 May iyadoo la isku raacay in kala wareegista ay dhacdo 20 Abriil 2020 wasaaradda waxbarashada ayaa sheegtay in dugsigan 15 May ka dhigi doonto macadka tababarka macallimiinta gabdhaha Soomaaliyeed si sare loogu qaado tayada waxbarashada dalka dugsiga 15 May ayaa tan sanadkii 2015 waxa gacanta ku hayay guddiga waxbarashada reer Masar iyadoo iskuulkan manhajka laga dhigayay uu ahaa manhajka waxbarashada dalka Masar oo ah waxbarashada hoose iyo dhexe macadda sababta go'aanka loo qaatay iyo haddii arintan ay ku lug leedahay xiriirka labada dal oo toddobaadadii dhawaa u muuqday mid aan wanaagsaneyn Soomaaliya ayaa dhawaan ka laabatay qaraar ka soo baxay jaamacadda Carabta oo lagu taageerayay qadiyada Masar ee muranka kala dhaxeeya Itoobiya ee salka ku haya biixireenka ay Addis Ababa ka sameynayso webiga Nile kamida cuqaasha madax dhaqameedka iyo waxgaradka ka soo jeeda gobolka Gabiley gaar ahaan koonfurta magaalada Gabiley ayaa maanta mar ay la hadleen warbaahinta si kulul ugu jawaabay odayaal maalintii shalay ahayd fariimo kulul iyo eedayn ku weeraray wasiirka wasaaradda isgaarsiinta barasaabka gobolka Gabiley iyo sidoo kale xildhibaanka golaha wakiilada ee Cabdullaahi Balaaki odayaashan iyo waxgaradkan ayaa eedii loo soo jeediyay mas'uuliyiinta dawladda ku tilmaamay kuwa been abuur ah oo sal iyo raatoona lahayn oo baalmarsan mabaadiida iyo sharciyada dalka u yaala waxayna sheegeen in eedaynta mas'uuliyiintan loo soo jeediyay aanay ahaynba wax iyaga khuseeya oo ay tahay arrin dhaqan ah oo ay hore u fuliyeen odayaasha reerku oo ay xidheen dad bixin waayay qaaraan mageed oo ay waajib ku ahayd inay bixiyaan cuqaashan ayaa sidoo kale sheegay inay xaal buuxa siinayaan mas'uuliyiinta la cambaareeyay waxayna sheegeen in dadka xidhan aanay u xidhnayn haba yaraatee wax siyaasada ee ay tahay arrin dhiig ah oo lagu leeyahay waxayna raaligelin 100% ka bixiyeen eedaynta loo soo jeediyay mas'uuliyiinta dawladda madax dhaqameedkan ayaa sidoo kale xukuumadda ugu baaqay inay xasaanada xildhibaannimo ka qaadaan sharcigana la horgeeyo xildhibaan kamid ah golaha deegaanka degmada Gabiley oo ay sheegeen inuu qayb ka ahaa dadkii shalay warbaahinta ka hadlay ee fadeexadda iyo cayda soo bandhigay waa siday hadalka u dhigeen waxayna yiraahdeen dadka loo sheegay ayaa wuxuu nala noqday wax aan cirka iyo dhulka meel ka jirin oo meel xildhibaanka beeshan ka matala baarlamaanka ee halka xildhibaan Cabdullaahi Balaag wasiirka teknolojiyadda barasaabka gobolka iyo maayarka degmada Gabiley intaba waxaanu xaal ka siinaynaa oo aanu halka maanta isu soo taagnay hadalkii shalay ta miidiyaha laga sii daayay xaal buuxa ayaanu ka siinaynaa waana arrin annagu meel ka socday cid wala ka toona garanayn dadka xidhan ee u siyaasiyiin iyo ku sheegayo dad ujeedo kale loo xidhay wax alla wax ka jira ma jiraan waxay ku xidhan yihiin waxa weeye dadkaasu dhiigana lagu leeyahay waxaanu ka soo jeedaa waliba ardaaga bacayla dhiigga lagu xidhan yahay ee la isku haysto anigayga hadlayana dhaho 3 goor baa lagu xidhay kamana xanaaqin mana xumaysan waayo waa dhiig reerkayga galay inuu markaa miidiya ka yiraahdo xildhibaanku isaga oo mas'uul qaran ah inuu ka yiraahdo wax dhiiga oo dadka lagu leeyahay ma jirto waa arrin aad anagu aanu ula yaabnay madda aqliga fayow lihina waa arrin ay aad ula yaabtay
kow wax alla wax ku kalifay anigu si kasta markaan u eegay aan garan waayay xildhibaanku sheekada wuxuu ula jeedo hadda uu shalay halkaa ka geys uu dawladda xildhibaanka oo u digaystay wasiirka iyo xildhibaanka iyo barasaabka xaal baanu ka bixinay haddaan isaga u soo noqdo halkaa maanta uu ka hadlayo heerkaa qabalo kooshin leedahay geelaa qaybsaday uu baabiinayo iyo xildhibaanada 1500 oo cod baan ku soo saaray geelaa magaca uu sheegayo uu leeyahay cadaalad-darro gobasha aan wax loola jeeda aanan garanay 4 beelood oo 4 xaafadood oo dan wadaagan geela ku qaybsan tusmaanu ku kala tagnay geelaa qaybtiisa uu rag u xiriinay wasiir iyo suldaan iyo xildhibaan wax alla waxa meesha ka soo galaan ma jiro sababta nimanku ku xidhay horta waa geel dawladda eedeeyay aal baanu ka siinanaa hadday baro saab tahay ay tahay xildhibaan ay tahay wasiir aal baanu ka siinanaa aad iyo aad waxaasina meel uu ka yimid ma garanayn meel laga sameeyeyna ma garanayn anigu inta xidhan adeer baanu ahay xidhan baan adeeru haya kaa baxsaday walba meel xadhiga intuu ka meeraysanayo baxsaday geelaa laygu leeyahay labadaa iga horreeyeyba geelaa ayaa lagu leeyahay anigana waa laygu lahaa waan soo qaybsaday 4 rubuc baanu u qaybsanay magaalada boodley laydhaa baanu tagnay in waliba intiisiibu reerka dhexdiisii haddana laygu rubuc waliba aftadkiin baan lahayn ka xidhan aqalkiisaan ku soo qaybiyey wax alla wuxuu ka hadlayo iyo wuxuu ka yahay midna ma jiro kii lagu lahaana weeyaan geelaa lagu lahaa weeyaan kaasina wuu ii xidhnaanayaa ka kalena waa la ii soo xidhaya anigaana u adeera xildhibaanku waa xildhibaankayagii waxaanu dooranay golaha deegaanka gabiley golaha dhaqanka umana dooran uu ka soo ambaday golihii deegaanka wuxuu ku soo ambaday golihii dhaqanka kaanu ka eegaynay inuu caasimadahan maayir ka noqdo ayuu qadowgii 4 gaari shalay uu kaxaystay uu reerka ku burburinayo 4 gaari wuxuu ku soo ururiyey reero aan baha kooshi baahay inay wasiirkayaga caayaan inay xildhibaankayaga caayaan oo aflagaada u geystaan inay suldaankayaga caayaan inay caaqilkayaga caayaan inay yidhahdaan caaqilba ma lihiin oo mabaanaa dooranba reeran caaqil lahaynin ma jiro dunida malada waxay tahdaa geelu hadduu labada dambe ka habeediyo waa gadu lahaan jiray labada hore ka habeediyana waa gadu la soo baxay baa la yidhahdaa waxa weeye dhaqanku waxa hogaamin jiray odayaal iyo caaqil odayaasha iyo caaqilkaa hogaamiya ayay dawladduna ku ogeyd dhibaan hogaamiye oo doonaya inuu caaqil aftuubo u afgembiyo reer idil doonaya inuu ku tagrifalo masaakiintu dhiigga ay soo ururiyaan ayaa horta cid walba shalay cambaareeyey wasiir sheekh waanu ka algelnaa waa wasiirkaygii fadeexad iyo cay midaba uma ogolin wixii fadeexad iyo cay ula yimaada dhan baanu ka nahay xasaanadda in si toosa looga qaadan karaa oo sharciga naloo hor keeno oo lagu weydiiyo wuxuu shalay ka hadlayay ayaan codsanayna xuseen jamaciyo xuseen garyare ay toolka ka dhisi lahaayeen ee saakoona war ka saddexaadna inagaa laynoo xidxiray maantana saakadina shalay way naga bixiyeen maxaynu yeelaan halkii ka odhan lahaayeen ayaan la bixin baa layidhi ayaanu halkaa la gelin baa layidhi waa la nagaga tegey tolkiiba markii dambe is urursaday tolkiibaa saakadina wacaysan iska bixinna layidhi sidii baa saaka lacagtii lagu bixiyey lacagtaa maanta nimankaas u xidhan yihiin yaa u cali duulduul baabinayo geeli bacaylaad weeyaan geelu isagu gelay weeyaan jufo weeyaan oo waxaad yeela kula inuu jufo yahayba isma kala garanayo isma kala garanayo iska xigta inaanay jirin waan anigana lay xidhaynin ninkana loo xidhaynin isaga loo xidhay ama isaga loo dilayana cali ma garanayo waana kaasaaka ku galgalanaye ee weliba galgalasa isaga isdilla weliba wadaan reer isdilaana wadaa waa cali jabhad weynaaday buu hayay jabhadka halkiiba ku noqon halkuu saaka waxaan leenahay cali dawladdu hore culus ha ku qabato ee ahaa reerka qabala kooshin inaa uu furfur ku sameeyo ninka la yidhaahdo cali duldul burburiyo inuu fadeexadeeyo dawladda iyo xildhibaanada iyo wasiirada maaha annagana inuu wax lagu kala dhex tuuro maaha dadkani waa dadkii xildhibaanka ka dhigay weeyaan ee doorashada soo saaray adeerkii iyo inadeerkii iyo walaalkiiba way joogaan haddii uu ninkaasi ka taxadiri waayo waxaa in xasaanada laga qaado oo waddada la mariyo dawladduna na hor keento waanu codsanaynaa waxa weeye dhiigga nimankaa ku xidhan waa geella caaqiluunbaa ka hadla caaqil sacuudi baa iminkana dhex jooga waan dooranay ninkaa xidhan aqalkiisaa lagu doortay raggii caleemasaari weeyi aadhaanka odayaasha iyo caaqilku ku shaqa leeyihiin dhiigga way og tahay dawladda somalilan iyo caalamkao dhan iyo muslimku u ogyahay hawshaa aanu lahayn buu galay xildhibaanku waa ayaan darro muuse garyara kee shalay midiyaa ka hadlaya lahaa shilina lagu mara kiigee la qaybiye buu ahaa waa xildhibaanka waa furfur waa iska horkeen reeraha uu iska horkeenayo waxaan leeyahay ninkaa ha nalaga qabto iminkana wuxuu marayaaba dawladdii iyo madaxweynihii hanjabayaaba haddii wax laga qabanaya buu leeyahay maxaa laga qabani ma dhaqanka gashiga tolku bixiyo xildhibaan shaqo kuma laha wasiir shaqo kuma laha barasaab shaqo balhalkuu gaaraya eeg waxaan waxaakii dhaqanka ahayd waxna lagu leeyahay bay ahayd waxa ay ku xidhan yihiin waa sifo sharciya adduunkii reerkay hayaan waxaan ka codsanaynaa dawladda inayaan inay halkaa ku jiraan
nimankaa lagu fadeexadeeyey meesha wax alla wax lagu sameeyaa ma jiro marka waxa weeye wasiirna maaha xildhibaanna maaha in lagu idhaaho waxaa fadeexadda waxaasoo dhibina ma jirto waxaana leeyahay caaqilkii soo xidhay waa aniga iyo odayaashiiba waa kuwan cid kaloo eedihiina ma jirto sidaa darteed waxaan leeyahay cali baa dhibaatada wadee cali ha laga qabta reerka ee ay tahay arrin dhiig ah oo lagu leeyahay waxayna raaligelin 100% ka bixiyeen ee dheynta loo soo jeediyay mas'uuliyiinta dawladda madax dhaqameedkan ayaa sidoo kale xukuumadda ugu baaqay inay xasaanada xildhibaannimo ka qaadaan sharcigana la horgeeyo xildhibaan kamid ah golaha deegaanka degmada Gabiley oo ay sheegeen inuu qayb ka ahaa dadkii shalay warbaahinta ka hadlay ee fadeexadda iyo cayda soo bandhigay waa siday hadalka u dhigeen waxayna yiraahdeen dadka loo sheegay ayaa wuxuu nala noqday wax aan cirka iyo dhulka meel ka jirin oo meel xildhibaanka beeshan ka matala baarlamaanka ee halka xildhibaan Cabdullaahi Balaag wasiirka teknolojiyadda barasaabka gobolka iyo maayarka degmada Gabiley intaba waxaanu xaal ka siinaynaa oo aanu halka maanta isu soo taagnay hadalkii shalay ta miidiyaha laga sii daayay xaal buuxa ayaanu ka siinaynaa waana arrin annaan annagu meel ka socday cid wada ka toona garanayn dadka xidhan ee u siyaasiyiin iyo ku sheegayo dad ujeedo kale loo xidhay wax alla wax ka jira ma jiraan waxay ku xidhan yihiin waxa weeye dadkaasu dhiigana lagu leeyahay waxaanu ka soo jeedaa weliba ardaaga bacayla dhiigga lagu xidhan yahay ee la isku haysto aniga iga hadlayana dhaho 3 goor baa lagu xidhay kamana xanaaqin mana xumaysan waayo waa dhiig reerkayga galay inuu markaa miidiya ka yiraahdo xildhibaanku isagoo oo mas'uul qaran ah inuu ka yiraahdo wax dhiiga oo dadka lagu leeyahay ma jirto waa arrin aad anagu aanu ula yaabnay madda aqliga fayow lihina waa arrin ay aad ula yaabtay kow wax alla wax ku kalifay anigu si kasta markaanu eegay aan garan waayay xildhibaanku sheekada wuxuu ula jeedo hadda uu shalay halkaa ka geys uu dawladda xildhibaanka oo u digaystay wasiirka iyo xildhibaanka iyo barasaabka xaal baanu ka bixinay haddaan isaga u soo noqdo halkaa maanta uu ka hadlayo reerkaa qabalo kooshin leedahay geela qaybsaday oo baabiinay iyo xildhibaanka 1500 cod baan ku soo saaray geela magaca uu sheegayo uu leeyahay cadaalad darro aan wax loola jeedo aanan garanay 4 beelood oo 4 xaafadood dan wadaagan geela ku qaybsan tusmaanu ku kala tagnay geela qaybtiisu burrag u xiriinay wasiir iyo suldaan iyo xildhibaan wax alla waxa meesha ka soo galaan ma jiro sababtan ma ku xidhay horta waa geel dawladda eedeeyay albaanu ka siinana